halkani waa xadka Itoobiya iyo Somaliland ee magaalo xuduudeedka Wajaale waxaana si isdaba joog ah ku marayay gaadiid tiro badan oo ka imanaya Itoobiya isla markaana ku socda ijtimaaca muslimiinta ee sanad walba ka qabsooma magaalada Hargeysa kaasoo dalal badan oo adduunka ah looga soo safro si loo xoojiyo ama loogu dadaalo kor u qaadista diinta Islaamka loona gaarsiiyo risaalada rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo ina soo gaarsiiyay diinta Islaamka dacalada adduunka oo dhan tirada gaadiidka sanadka ka soo galay dalka Itoobiya ee mariyay magareeshinka Somaliland ee Wajaale ayaa ah 263 gaadiid ah oo ka yimid dhanka Itoobiya sida uu noo sheegay mid ka mid ah culimada nambarada gaadiidka u soo gudbiyay magareeshinka Somaliland waxaana hadaladiisii ka mid ahaa waxaad ka warantaa inta maanta ijtimaaca ka soo qayb galayay Itoobiya ee waraaqiisa haysan maanta waraaqiisa Ilaahay fadligiisa lahaynaa waxa weeyaan 265 gaari oo inta magaraysa qudurka loo sameeyay qoraalka ayaanu haynaa Ilaahay fadligiisa kolka waxna wayna mareen waxna way dambeeyaan insha Allah taala inta yara dambeysana inayna dhaafaan baa laga yaabaa madhow marka idinka u qaabilsan Soomaha xagga migration-ka culimada waraaqaha inaan anaga u dhaxayna migration-ka iyo gawaarida u dhaxayna insha Allah Somaliland waxaan adduunku sameyn bay samaysay rikoodkay jabisay calankan la ilaalay ciyaaraha moodina caalamka shaytaan isku yaacay konton qof iyo istimaaci hore qabatay adduunka meelan la inooga soo ducayn ma jirto caalamka oo dhan bay inoo ducay gaar doorasho Afrikaan qabtoon cidna cid taabani waa ducadii marka doorkan Itoobiya say uga soo qayb gashay kana badan aad kan culimadii hawashado dhan Itoobiya meel damuugti waa 35 xalay dhaafin Itoobiya meel aan laga iman sanadkan ma jirto culimo oo dhan way timid sanadka Itoobiya marka sortu waa laga yimaadaa haddana sanad ka dambeeya way ka sii ziyaadaysaa way ka imaamartay ka badanaysaa marka maanta waxa la filayaa in ka sii ziyaado maxaa yeelay culimadii waaweyn mid kamid Cabdirashiid Ali Suufi iyo Sheekh Dirir iyo maalmahan oo dhanba toddobaadada dhex socday markii dadkii baraarujiyeen haddana waxa loo tilmaamay inay majmaca yimaadaan kulanka yimaadaan marka dad fara badan baa soo socda runtii markaad aragto xarunta weyn ee Jigjiga ku taala ilaa xalay ilaa shalay toddobaadkan oo dhan aad baa loo istiqbaalay dadka oo baabuurta oo dhan markasta waxaan isku habeynay oo markasta ka diyaar garoobeen saasoo kale dir dhabana saasoo kale ma sha Allah Itoobiya waxaad moodaa maanta yaani inaan dadkii ehlu khayrka iyo dadkii maaragtay waxa weeyaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala khayrka maanta uu la doonay Hargeysa ijtimaaca ka dhacaya si fiican baan ugu faraxsanahay waxaan kaloon ku faraxsanahay ummadda maaragtay waxa weeyaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala qalbigooda suu isugu soo dhaweeyay siday maaragtay waxa weeyaan labada magareeshin iyo maaragtay waxa weeyaan iyo xadka iyo meel walba aan uga joojinayna farxadda ka muuqata kuwan ku soconiyo kuwan ka nimid khayr baan u rajaynayna ma 10 sano waxaan nimid 8 sano nimid 8 sano ayay sanadka ka dambeeya ayay maaragtay waxa weeyaan ijtimaacuna sii biiraya ummaduna fahamkeeda diinta iyo maaragtay waxa weeyaan insaaniyad iyo wax walba uu sii biiraya abban ugu faraxsanahay alxamdulillah بسم الله الحمد لله ثناء الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مقعي وعبد الرحمن علمي الرابي ويا وحان كاي من دير دبا مساجد كاي وخلفاء الراشدين إن شاء الله تعالى وحان نسعنا كلن كالدينات كدعيا هرقيسة كلي بابور بدن ويا وسود بتشوغان ددكو aad buu uga soo qayb galay ilaahay mahadi Soomaaliland si wanaagsan bay noo soo dhaweysay baabuurtaadaan ku socono waa baabuurtii Itoobiya weeyaan toos magaraysa min Dirdhaba ilaa Hargeysa wadooyinka aad buu wadadu fiican tahay aad bay Soomaaliland noogu fudaydisay ma sha Allah waan soo dhaweynaynaa wadanka Allah barakeeyo Allah kor u qaado waan lana jazaakumullahu khayr wali waxa soo qulqulaya dadka ka soo qayb galaya ijtimaaca weyn ee magaalada Hargeysa lagu qabanayo maanta oo ay ka soo qayb galayso culimo waaweyn oo ay leeyihiin dadka Soomaalidu culimadan ayaa waxa kamid ah Sheekh Cabdirashiid Sheekh Ali Suufi Sheekh Xuseen Ali iyo culimo kale oo waaweyn oo ummadda Islaamka ah haddaba dalka Itoobiya ayaa maanta si weyn looga imanaya sida idiin muuqata iyadoo ilaa hadda ay soo qulqulayaan waa Cabsalaan Maxamed Bade Bulsha TV Gabiley hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Somaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac
xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees. tayo waa Telesom. maxaa ku dhibay isticmaal Somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sareeyo. macmiil ma ogtahay inaad ku guulaysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri, dhul iyo hadyado kale oo qaaliya sida mobaylo, mayfai, geel, ari, dahab, lacag iyo internet bilaasha. haddaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guulayste isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal, internet iyo e-dahab. kaga shubo e-dahab xidig 1 eber 1 afargees nasiib